kamid ahay waxaa joogay ministry laba nin oo kale oo la socod habeenka cadan la isla joogo waa fadhiya aniga delegation kan kamid ahay waxaa joogay ministry laba nin oo kale oo la socotay annagana waxaan ahay dad xayn baan ahay madaxweynihii waxaa socday wasiirkii arrimaha dibadda waxaas oo Cabdiraxmaan Jaamac waxaa socday Xuseen Cabdulqaadir Qaasim aniga waa socday oo military wing ka maaragtay ka socday meeshii baa la soo qaaya keenay dhinaca Yemen waxay yimid madaxweynihii Yemen Rubeey Cali la dhahay fiican waxaa la keenay mid kale dawaca oo ahaa xogayihii guud xisbigii shuuciga ahaa ee Yemen tacadan oo la dhihi jiray Cabdi Fattaax Ismaaciil la dhahay markii la bilaabay oo kasrana waa fadhiya ayaa oo maaragtay yiri meeshii hanti wadaago soo waayay hadeer Ethiopia waa nagu soo beertay banaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo maaragtay Ethiopia inaan xalina rabnaa oo si maaragtay tawaarish ah in lagu xaliyo oo maaragtay la sameeyo federation Soomaaliya iyo Ethiopia iyo South Yemen inay maaragtay iskaashadaan kiina oo daladaas oo daafaco korka joogo xalsiyada hadlay Allah naxariisto wuxuu yiri federation waa ogolnahay hadii la yeelayo oo geeskiisa oo noqonayo qowmiyad anaha Soomaaliya oo dhan hadii meel la marinayo isku meel la marinayo ku jirto Soomaali galbeed markaas waa aad u fiican maaragtay waa diyaar baan oona intii aan mingistu hadlin basidii Soomaaliya waa uu jirsanay ayaa waxa soo booday Cabdi Fattaax xisbiga shuuciga xooya guudka ah markaasuu yiri adigu waxa ku dhaarato inaad Ethiopia qaadato ilaa mana ku soo roobaysay si kala warka si kala u dhig markaas madaxweynihii inta soo booday warnimanka ayaga wada hadlayeen adigu ku dhexgoodini suuqa wada hadleen inta madaxweynihii ku booday rajci baatan maxaa meesha ku keenay meesha inta wadaagina ku wada hadlay adigu si rajci aad oo ku wixii maayo ayuu calwi mingistina ma jawaabin maxaa si aad hadlay baalki xataa fiilkaas oo ayaabay meesha fadhiya مثل كاسترو أو شربان ماشكا شركة كا ayaa yiri suuxdii aan soo noqono waayaan inaan ma la isku soo noqday markan xagee la soo noqday markii uu naga tagay ayuu dawladdiisa hore ka mootaystay waa dhaqaaq suuxdii waa soo kacnay waxa la ninka xalowti kaastarana dib u arag ingistana arag kixmaayo Yemen taabaan arag annaguna waa soo noqon halkaas baashaas ku fashalan waa tahay maxaa xigay markaa dagaalkii sii kululaaday iyo digniino la idin siiyay inaad xulafadii ka baxdeen oo markaas idinkuna aad Ethiopia ciidamadeena kala baxdaan sidii ballankii hore oo ahaa markii gobernadorka la abaabulay hadday magaalooyinka waaweyn ku soo aruuriyaan ciidamada xabashida iyo maamulka iyo waxa soo dhan ma suurowdo inay gobernadorku magaalooyinka ka saaraan sidii ballanku ahaa halka nimankii waa halkaas joogay ciidanka waa la geliyay ciidanka halkaas abaabulkiisa laga galay waana la geliyay aniga la idray aniga abaabulay ana qorshe aniga qoray ana u qaybiyay ciidamadii ana dhaqaajiyay ana hogaaminayay ilaa maaragtay meelaha ka taga waa la qariinay xagee laga waxaan qarsoomayna ayaan qarinay waxaan qarsoomay marka ay xaaji saan noqotay oo magaalooyinkii aad gasheen oo dagaalkii sii kululaaday hadee xoogagii wars iyaguna waa yimaadeen oo gudihii Ethiopia ay soo galeen balaa meesha ka dhacday halkaas way anagu waxaan aan ciidanka iyagu sidiisaba 35 kun oo ahaa marka iskaba half a million ayaa la keenay kubaanka kaliya 30 kun ahaa marka waxa la keenay jarmalkii bari waxa la keenay Sovietki waxa la keenay Bulgaria waxa la keenay Poland nus million ciidan ayaa meesha la keenay oo warso baafta ayaa isugu timid oo hadda waqta oo in ka badan 500 taangina wata iyo inta artilleria iyo inta balaaya maxaa dhacay marka hadda de waa si fiican bay noo garaaceen marka halkaas aynaga khilaaf ka dhacday dhexdayadii anigu waxaan soo jeedinayaa frontiga joogo waxana operatorka wadi anigu ahaa marka waxa ay qarsadaan oo ma ku xajin karnay waxaan yeelaynaa ciidamada risligana waa la fumeen iyara aan dib u celino meesha aan guuto gobernador aan gelinayna gudaha 2 sano waa la dagaalamaya waa la halgamaya wallahi soo moodi kare anagu aan ciidamada yada dib inta aan samaysano oo dib u soo aruurno aan buuxino oo wixii kale adduunka aan u feeri karnaa aan raadsano
marka waxaan soo dhaxeeyay waay soo tarbiyad dacta ku dhiftay male hadda markaan aniga sababta isqabanay wuxuu ugu yiri daadaa fudud ka soo tag ma ka tigaan waxa uu iga yeeray hadda afar bari markaan ka soo maqnaa ayaa meeshii aan ka imid la soo jiiray oo maaragtay kala baydka la soo dhigay marka markii yeeray markii aan urday amasiya oo yiri balaaya dhacday wixii maaragtay hadaan waagi hore qaadan lahayn waxa war hadda shalay mare ciidamada jooga maxaan qabanaa maxaa la soo kara ciidamada filtu meel la yiraahdo Abdullahi Yusuf ku hayo oo aan wali dagaal gelin ciidamada haddana la arbo uu farakay inay ku dhifo adoorti waa qabsanay inna joogto kabacdina meesha awaarta iyo shashada maqashay halkaas xaqareed markaas ciidamada Hargeysa ku soo socdo dhan wala soo celinaya ilaa Hargeysa waa 50 kilomitir loo gaaray markaas uu yiri waa qorshaas waa fiican yahay laakiin ma waxaad rabtaa hadalka kan maxay oo koowiyaha war waxaad rabtaa niman Maxamed Siyaadaan in guul wada la yiraahdo saan waa nahay kalmada weyn guul ka soo timaad adaa u ah markaas warkaas ma jireen markaas waxaan jiray Abdullahi Yusuf ka shaki qaba waan sheegay jiray markaas ninka meesha jooga bedel mid kale ku bedel laakiin baasha la haaji markaas waa soo qaymid waxaad ku hadlaysaa oo intay ugu soo jeesto markaas aashaga madaxweyne Hargeysa la qabsanaya Hargeysa la qabsaday bacadna la yimaado wariyaa ila cadawayga saaxiibkeeda ku moodayay ila cadawayga ka uu yiri intay ugu soo jeesto فرح الدلع وقصتي مركز هذا فهمي وحبلايا دبا وحو فلكيري وحمارك تي دوكا خريوي انو اسغا ياي oo maaragtay iyo qolo kale oo iyaguna khilaafka wadayo oo xirtay baashan ku dhawaday baa wax yaaminay marka arrintaas ka baaday